Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Daawadayaal ku soo dhawaada muuqaal cusub iyo xikmado ku saabsan nolosha. Haddaba fadlan haddii ay tahay markii kuugu horeysay ee aad soo boqoto channelka subscribe saar, sidoo kale fiidiyoga haddii uu ku cajabiyo like saar. Haddaba daawada ha noqon qof indhaha wax ku qiimeeya, ee noqo qof caqli wax ku qiimeeya, waayo indhuhu waxay ku siinayaan jawaab ku kooban waxaad arkayso, halka caqligu ku siinayo su'aalo iyo jawaabo macquul ah oo aan indhuhu arki karin. Ogow, ku gaadhi maysid guul dadaal waxaan ahayn, ku heli maysid waxaad rabto edeb waxaan ahayn. Ogow, haddayna jirin cid ku xaasidaa wanaag ma lihid, sidoo kale haddii aanad saaxiib lahaynna dabeecad ma lihid. Sidoo kale ku dadaalka ducaysiga labada waalid si ay gaashaan kaaga noqoto dhibaato kasta. Waxaad ogaataa waddo aad marto waxaa ugu sharaf badan tan aad khayr u marto, waxaana ugu aamin badan tan aad gurigaaga u marto adigoo rabbigaa tala saaranaya. Kan indhaha leh wuxuu rajeeyaa inuu mar uun wax arko, ka dhagaha lehna wuxuu jeclaystaa inuu mar uun wax maqlo, ka curyaankaana wuxuu jecel yahay inuu mar uun tallaabsado. Adna waxbaad maqlaysaa, waxbaad arkaysaa, waad soconaysaa, haddana waad murugoonaysaa. Ee fadhiga ka kaco oo iskana soo xidh daaqadaha wahsiga. Inaad wax jeclaatid waa dhib, inaanad waxba jeclaanin waa dhibaato kale, balse dhibta ugu sii xun ayaa ah inaad qof jeclaatid adigoo aan hadafba ka lahayn. Fikirka xad-dhaafka ahi wuxuu burburiyaa farxadda, sidoo kale beenta badanina waxay dishaa kalsoonida. Hadiyaddu ma aha qoloftan sare ee waxa ku jira gudaha, sidaasoo kale shakhsiyadda qofkuna ma aha muuqaalka sare ee waa waxa qalbigiisa ku jira. Su'aal ayaan ku weydiinayaa, isku day u fikir oo ammaankaaga fur, rumee oo ficil ku qaad. Rajada aanad ficil ku qabin sidee ayaad ku rumaynaysaa?